Gidoomiyaha gobolka banadir ayaa xaley kormeer ku maray fadhiisino ay ciidamada nabad ay ku leeyihiin wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalada muqdisho. warkaasi waxa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyaheena Ibrahim Xaaji Yuusuf. markastaba gobolka banadir ujeedada kormeerka uu gudoomiyaha gobolka banadir ahna duqa muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa ahayd in waqti habeen uu la qaato ciidamada ammaanka ee ku sugan daafaha caasimada kuwa oo ka hortagaya falalka ka hor imaanaya amniga ee mararka qaar ka dhaca caasimada. gudoomiye taabid ayaa dhammaan ciidamadu wuxuu u geeyay casho isagoo ugu mahad celiyay howsha adag ee qaranka u hayaan. kormeerka ayaa lagu tagay dhammaan wadooyinka waaweyn ee caasimada soo gala kuwa oo ciidamada ay ku leeyihiin xarumo ay gaadiidka ay ku baaraan. gudoomiyaha ayaa dhammaan ciidamada u tagay waxa ugu hambaliyay curashada sanadka cusub ee 2018 maadaama xilligaas uu askarta la joogay. ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan dadka ku nool gobolka banadir iyo magaalada muqdisho caasimada dalka ah ama muqdishaawiinta waxaan leeyahay sanad wanaagsan. waxaan ilaahay ka baryaynaa sanad nabadeed oo barwaaqo ah. waxa ballankeenu yahay wada tashi iyo waxqabad insha Allah taala sanadka 2018. waxaan hadda taaganahay siinka dheer oo ah aan barta lagu kontaroolo gawaarida soo galayso magaalada muqdisho oo caawa aan goosanay inaan ciidamadeena ama halyeeyadeena ama dadkeena naftooda inoo horena caawa kula qaybsano meeshan. waqtiga aan joogno waa waxay dhaaftay saqdii dhexe oo sanadkii cusub baa dhashay. duruufta meesha aan ku arkay waxa igu filan oo kaliya dhaxanta ku dhacayso ciidankeena. taa runtii waxayna tusaysaa inaan la damqano aan la istaagno nafta sidee noogu horay annagana ugu horno habeenii maalina ag joogno. waxaa sharaf weyn caawa ii ah in ciidankii hay'adaha amniga ka tirsanaa ee rugtan joogay inaan la qaadanayno sanadka cusub. sanadkii hore ee 2017 wuxuu ahaa sanad kala duwan duruufo adag iyo kuwa wanaagsan soo maray. waan xasuusanaa waxyaabihii wanaagsanaa ee noo suurtagalay. wax aan la samayn karin ayaan sameynay. tilaabooyin aan la qaadi karin ayaan qaadnay. waxaana ku qaadnay taageeridiina dhabar adeegiina kaalmadiina iyo taladiina wanaagsan iyo sidoo kale taabagelintiina wanaagsan ee aad mar walba nala garab taagneedeen. hadda wali waxa socdo qorgolada gudoomiyaha gobolka uu ku galayay furmaha meelaha ka baxsan magaalada muqdisho ciidamada ay joogaan. waqtigan waa 3 habeenimo ama 9 habeenimo oo goordhow waaga ayaa bari doona. walina waa uu socdaa kormeerka gudoomiyaha gobolka uu ku tagayo daafaha magaalada. waqtigan waa xilli dambe magaalada muqdisho duleedkeeda ayaan ku suganahay gaar ahaan deegaanka ceelasha biyaha iyadoo gudoomiyaha gobolka banadir iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka ciidamada xoogga ee ku sugan daafaha magaalada muqdisho ay caawa ay gaarsiiyeen deeq raashin ah iyadoo ay sanadka cusubna ula dabaaldegeen. Ibrahim Xaaji Yuusuf, RTN TV, magaalada muqdisho.